howlgalkani ma ahayn mid hore loo sii qorsheeyay laakiin wax kasta waxa aad moodaa in si ku talagal loo abaabulay dadka qaar waxa ay ku soo salaleen diyaaradaha dagaalka oo hawada duulaya gawaarida gaashaamana ciidamada oo wadooyinka tuban ciidamo aad u fara badan oo hadba dhinac u yaacaya isla markaana waxa la amray dadka qaar inay ka fogaadaan goob howlgal gooni ah uu ka dhacayo shacabka deegaanku ma oga in saddex wiil oo qiimo ka lahaa wadankan maalintaasi halkaasi lagu dili doono waxa ugaarsanayana aysan ahayn ciidamadii wadankooda oo ay yihiin ciidamo shisheeye oo wadanka xoog ku soo galay isla markaana talada ka tuuray madaxweynihii wadanka iyo hogaamiyaashii qiimaha lahaa ee qarankan dunida carabta aadka looga yaqaanay waxa lagu tilmaami karaa subax la yaab leh walaacuna uu aad u badan yahay wajilaalkii ee sanadkii 2003 magaaladan waa Mosul waxa ka dhacay howlgal oo abaabulay General David Petraeus subaxaasi waxa uu la kulmayaa hogaamiyaasha magaalada sida ku xigeenka gobolka oo aan xitaa isaga ka warhayn waxa meesha ka dhacaya laakiin markii la ii sheegay buu yiri anfariir ayaan ka qaaday xaalku in uu sidan ahaan doono sidee u dhacay howlgalkii lagu qaarajiyay Qusay Cuday iyo wiilkii Mustafa lagu magacaabi jiray oo ahaa wiilkii curadka u ahaa Qusay ilmahan dhammaantood waxay ahaayeen caruurtii uu dhalay Saddam Hussein sheeko ugu dambeyntii qabsan doonta warbaahinta adduunka isla markaana Mareykanku ay u arkayaan inay fuliyeen mid ka mid ah howlgalladii ay u soo galeen wadanka Ciraaq sidee howlgalkan uga dhacay magaalada uu ka dhacay ee Mosul sidee dadku u arkayeen guriga uu howlgalka ku dhacay sidee ay ku soo gaareen wiilashan oo ka mid ahaa diiwaanka dadka aadka ay Mareykanka u baadi goobayeen ma Mosul ayay rabeen inay ka bilaabaan howlgal dagaal oo looga soo horjeeda Mareykanka maadaama si dhammaystiran uu qabsaday dalkii uu xitaa galay qasrigii talada ee magaalada Baghdad sidee looga soo saaray magaalada Tikrit oo ay asal ahaan ka soo jeedeen tacabirka safarkoodu xagee ahaa ma dhabaasay inay wateen lacago iyo waliba waxyaabo kale oo aad qaali u ah shacabka Mosul ee magaalada lagu dilay wiilashan sidee maanta u arkaan wixii dhacay waxaan dib u eegi doonaa diiwaan taariikheed oo la yaab leh dhacdo qaarajina oo ay iska kaashadeen dhinacyo kala duwan rag ka tirsan wadanka Ciraaq ciidamada Mareykanka ee wadanka xoogga ku qabsaday iyo waliba howlgalka sida loo fuliyay oo ashqaraar lahaa soo dhawaada aan ku horeeyay magaalada Mosul ee dalka Ciraaq xaafad la yiraahdo Al-Falaax ayaa 22 Juun sanadkii 2013 dadku waxa ay ku soo salaleen howlgal aad iyo aad la yaab u leh oo ciidamada Mareykanka oo wada dabaabaad aad u culus diyaarado iyo guutooyin ka tirsan ciidamada ay markaliya isku shareereen xaafad dhinaca waqooyiga ku taala oo Al-Falaax la yiraahdo halkan waxa ka dhisnaa guri qasri ah oo dhismihiisu aad u weyn yahay waxa la ahaan jiray xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka wadanka Ciraaq ka hor 2003 intaanay ciidamada Mareykanka iyo kuwa kale oo garab siinayaan ay soo galin gudaha wadankaasi isla markaana aanay xidhiidh siibin dawladii uu hogaaminayay sargaalkii iyo ninkii madaxa adkaa ee Carbeed hogaamiyihii caanka ahaa Saddam Hussein gurigan howlgalka waxa ka fulinaya ciidamo wata dabaabaad culus ciidamo kuwa cirka ah saraakiil ka tirsan hay'adda sirdoonka dibadda ee Mareykanka ee CIA-da loo yaqaano iyo guutada 101 ee dalaayadaha ku booda kana tirsan ciidamada cirka ee wadanka Mareykanka intii aanu howlgalka bilaabin ayaa General David Petraeus oo ciidamada Mareykanka u jooga magaaladaasi waxa uu u tagay ku xigeenkii magaaladaasi oo gobolkaasi joogay oo lagu magacaabo Qasro Kowran kaas oo xilligaasi ka yimid howlgallo lagu xaqiijinayo amniga isla markaana
ay doonayaan asiga iyo kolonyadiisa inay u socdaalaan xaafadiisa si uu u nasto ninka la yiraahdo Qasro Kowran waxa uu leeyahay subaxaasi marka uu imaanayo General David Petraeus waxa uu ka duwanaa subaxyadii hore aad ayuu u dhididayay waxa uu dareemayay walaac aad u xoogan waxa uu watay dhammaan qalabka loogu talagalay in dagaalka lagu galo subaxaasi Petraeus uma ekeen buu yiri generaal ciidamo hogaaminaya waxa uu ekaa sargaal dagaal u socda oo waliba aadaya jiid aad u culus ma ogi buu yiri waxa walaacan oo dhan dusha ka saaray waxa uu ii sheegay shacabka dhinaca aaga koonfurta magaalada Mosul in ay ka soo dhaqaaqaan halkaasi waxaan ka sameynaynaa ayuu yiri howlgal aad u xoogan waxa uu ii sheegay halkaasi in ay joogaan 4 nin oo listiga 55 qof ee Ciraqiyiinta ah ee Mareykanka uu baadi goobaya ka tirsan laakiin aniga waxaan isweydiinayaa ayuu leeyahay Kowran dadka halkan laga baadi goobaya waxay yihiin laakiin waxa arinta ka daran waxay tahay rasaas xoog leh ayaa waqooyiga magaalada ka dhacaysa dabaabaadka dagaalka iyo ciidamaduna waa istaba marayaan gobolkan Salaaxudiin ee Mosul ay ka tirsan tahay waxa uu leeyahay gobolkan ay ka tirsan tahay Mosul waxa uu leeyahay ma ahayn goboladii caanka ku ahaa dagaalkii looga hortagay xitaa Mareykanka oo ciidamadii xoogga badnaa ee wadanka Ciraaq iyagoo aan hor istaagin ciidamada dalka Mareykanka ee halkan jooga ee David Petraeus uu hogaaminaya ayay isaga baxeen sidoo kale lama fili karin buu leeyahay in ay goobtan joogeen kooxo wax iska caabina waxa kaliya oo laga baqaya waxay ahayd fadqalala amni in ay sameeyaan kooxo burcada taasina waa mid aniga aan u sameynayo dowrada ama patrollinka aan doonayo inaan ku xaqiijiyo amniga iyo gaafmeerka magaalada gudaheeda laakiin aan naftarkayga aad ayaan u yaabay waxa uu leeyahay dad aad loo raadinaya ayaa halkan ku sugan waxaan haynaa sirdoon la isku haleyn karo xog ay soo gudbiyeen oo CIA-da ah marka waxaan rabnaa maadaama Kowran waa tahay hoggaanka magaaladan nin xushmad badan aad ka mid tahay oo inaad nala shaqayso runtii aniga aad bay i dhibaysaa ayuu leeyahay in la dilo dad Ciraaqiyiina oo halkan ku sugan laakiin maalintaas inaga waxba ma qaban karin waa la fariistay General David Petraeus waxaan ku iri ogaada dadka yaa la dilin haddii xitaa la raadinayo la soo qabto cadaaladda ha la geeyo ujeedadu sidaas ayuu ii sheegay inuu isaga sameyn doono laakiin ragga la rabo in la soo qabto waa niman laba arin mid ay ka go'an tahay ama inay adkaadaan ama in laga adkaado waa wiilal loo koriyay si la yaab leh wadaniyada lagu koriyay jacaylka wadankoodana wax kasta uu kala wan yahay inkastoo aabahood carabtu ay siyaabo kala duwan u fasirayeen haddana waxay ahaayeen rag hal leh oo doonayay inay wadankaasi muddo dheer maamulaan qaar kamid ah goobjoogayaasha goobta howlgalka uu ka soconayo waxaa kamid ah Axmed Xuseen oo la hadlay telefishin lagu magacaabo Al Arabi oo si weyn arintan u falanqeynaya waxa uu leeyahay subaxaasi waxay subax aad qariib igu ah ma malayn karin ciidamo Mareykan ah inay 4 qof oo kaliya oo mid kabina 15 jir yahay in sidaan oo dhan ay duulaan ugu qaadi karaan gurigii mid kamid ah xildhibaanada ee ku yaalay magaalada Mosul ayaa weerar lagu qaaday askar fara badan oo Mareykan ayaa raac u galayay markastoo askari gasho aniga waan eegaya oo albaab weyn ayay ka galayeen kadibna wax soo noqonaya ma jirin xabada ayaa aad u socotay sawaari kala duwan ayaa la isweydaarsanayay laakiin ma moodeen waxan oo rasaasa 4 qof oo kaliya in sidan loogu garaaci karay xitaa ragga la weerarayay ma wadan ilaalo gooni ah oo iyada la socotay iyaga hogaaminaya oo la socday guriga ayaa la galay markasta oo ay askarta Mareykanka guriga galaan waxa la soo saaraa tiro fara badan oo kamid ah dadkii askarta ahaa ee howshaasi galay ama iyagoo meyd ah ama iyagoo dhaawac ah oo dhibaatooyin ay ka soo gaareen isweydaarsiga rasaasta
ciidamadii Mareykanku waa ay quusteen inay halkaasi galaan dabaabaadkii gantaalada culus ridaya ee darbiyada duminayay tallaabo ayay qaadilayeen xiisadda ma daqiiqada ka dambaysa waa sii kordhaysa howlgalkana waxaa ku soo beeraya ciidan kale oo hor leh oo Mareykan ah laakiin la yaabku wuxuu yahay 4 wiil iyo in ka badan 400 oo askari oo ciidamo Mareykan ah waliba guutooyin si gaar ah u tababaran ayaa halkan isku haysta kadib diyaaradihii dagaalka ee Mareykanku waxay bilaabeen daar kasta oo gurigan aad hadda aragtaan ah in ay burburiyaan darbi meel kasta oo dhagax yaalay gantaal ayaa lagu dhuftay sida shamiintada guriga loogu adkeeyo dhagaxyada ayaa rasaasta loogu kala fujinaya darbiyada adag ugu dambeyntii waqtigii ayaa gobolkii dhacay xaaladda magaalada Mosul aad ayay u adag tahay warar kala duwan ayay warbaahintu tabinaysaa qaarkood waxay leeyihiin halkan waxa soo gaaray Taariq Casiis ninka la dagaalamayo ee ciidan xooggan halkan la soo galay waa Taariq Casiis qaarkood waxay leeyihiin generaaladii adkaa ee ciidamada Xarasal Jamhuuriya loo yaqaanay ayaa goobtan soo galay kuwa kale waxay tilmaamayaan Saddam Hussein ayaaba looga shakisan yahay goobta inuu joogo wararku aad ayay isku dhaxmarayaan suuqyada kala duwanaa ee Mosul ayaa soo xirmay maamulka Iraaqiyiinta ee magaaladan ka talinayay ee Mareykanku ay isfahmeen tala gacanta ugu ma jirto shacabka Ciraaq ee ku nool magaalada Mosul walaac badan ayaa haya waxana ay dareemayaan bahdilaad xoog leh inay ku socoto sababtu waxay tahay xitaa haddii raggan ay iska soo horjeedeen oo ay talada wadanka isku haysteen haddana waxa dhibaya qof Ciraaqi ah wadankiisa in askar Mareykan ay ku baacsanayso dibka jirasa uu yahay xitaa cid u heelanaysa in la laayahay xaalku waa cakirmay waa adkaaday talana waxay u muuqataa markan faraha inay ka baxday General David Petraeus markasta waxa uu ku jiraa qolka howlgelinta ciidamadiisa taleefano kala duwan ayaa ku soo dhacaya aqalka cad ayaa lagala soo hadlayaa qolka aqalka cad ku yaala situation room-ka loo yaqaan ama howlgallada gaarka ee dagaalka waxaa dhex fadhiya George W Bush oo soo wacaya Pentagon-ka generaaladiisii kala duwanaayna waa ag joogaan taleefanada waxay ku dhacayaan David Petraeus waxa la leeyahay ma soo gabagabaysa howlgalkii dadkii la baadi goobayana iyagoo nool miyaad gacanta ku soo dhigtay laakiin Petraeus waxa uu ogyahay dadkan inaan nolol lagu soo qaban karin Kowri ninkii la oran jirana oo howlgalkan kala shaqeynayay ee kamid ahaa hogaamiyaasha wadanka Ciraaq gaar ahaan magaalada Mosul waxa uu leeyahay annaga ma rabno qof Ciraaq in la tilo xitaa Mareykanku qudhiisa waxay rabaan in ay gacanta ku soo qabtaan dadkan nool asaate maalintaasi qasro Kowran waxa uu leeyahay maalin eegaga adkayd in ay magaaladan soo mari doonto ma jiro waa jiilaal was 2003 wadanka waxa uu ku noolaan jiray si haybad iyo sharaf leh laakiin xilligan dad maamuus leh ayaa halkan lagu dubanaya ciidamo shisheeye ayaana raadinaya maxaa dhacay ciidamadii Mareykanku waxay isku dayeen in ay tallaabo qaadaan laakiin tallaabo kasta oo ay qaadaan 4 dhalinyaro ah ayaa isu taagay waxay kala hayeen Uday Saddam Hussein oo ahaa wiilkii ugu weynaa Saddam Hussein oo 39 jira iyo waliba Qusay oo 37 jira iyo Mustafa Qusay Saddam Hussein oo isna 15 jira iyo darawalkii gaariga ku kaxeynayay afartoodiiba waa la dilay gantaal culus ayaa lagu dhuftay meesha ay ku sugnaayeen ciidamada Mareykanku waxa ay dareemayeen foolxumo iyo wajigaba xoog leh inay ka qaadi doonaan haddii ay raggan baxsadaan waa la soo go'aamiyay Bushna waxa uu yiri ha loo dhameeyo maalintaas markuu gobolka madoobaaday ayaa guriga gantaal lagu dhuftay maalintii dambe oo gawaabari markii ay cadceedda soo baxday ayaa gurigii la galay afartii meydka ahaydna waa laga soo saaray waxa lagu wareejiyay maamulkii deegaanka iyo waliba Kowrani oo lagu yiri hoo adiga aaso
وويلكو دلي صدام حسين عدي أهانا ويلكي قوينا بري لغو إيديي إن أو دل أو جيستمد كميدا صاحب بدي قاركا هاي صدام حسين isla markaana muddo dheer la la'aa oo joogay magaalada Mosul kuna badbaaday ilaa kiiskii ugu dambeyntii la xaliyay intii uu talada wadanka aabihii joogay Cuday waxa uu gacanta ku hayay malafka dhalinyarada iyo warbaahinta waliba xisbiga Al-Ba'ath la yiraahdo ee talada wadankaasi joogay ayaa go'aanada isaga u gaarayay qaabeynta fikirka magaalada dalka iyo waliba bulshada reer Ciraaq waxa uu ahaa maskaxdii ka dambeysay waxa uu ahaa nin isu diyaarinaya talada wadanka inuu isaga kala wareega aabihii maalintaas ayaa noloshiisii la soo gabagabeeyay Qusay oo 37 jir ahaa oo 2 sano ka yara walaalkii 2003 waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah isla markaana aabihii aad ugu dhawaa xilliyo kala duwan waxa uu ahaa nin gacanta ku haya malafka siyaasadda iyo militariga waxa uu ahaa nin go'aanada military ee wadankaasi laga gaaro inta badan isagu ay ka iman jireen oo saraakiisha kala duwan xitaa mararka qaar ay u arkayeen Saddam Hussein ka labaad ee wadanka jooga Mustafa Qusay oo 15 jir ahaa oo Qusaygan la dilay oo dhalay orod u ahaa waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah laakiin ciidamada Mareykanka warqadda ay ku qoreen dilka raggan waxay ku tilmaamayeen nin da'da uu jiro ka weyn tabta iyo xeelasha iyo geesinimada dagaalkana aad ugu wanaagsanaa waliba mararka qaar waxa uu ahaa ninka tabta raggan ay u dagaalamayaan ay ka imaanaysa askarta Mareykankana u dhameynayay markii aaga ay soo galaan xuduudiisa geesinimadiisa iyo waliba sida uu dagaalka maalintaas u galay nasiib darrase waa la dilay su'aalo badan ayaa haddaba ku gadaaman oo ay isweydiinayaan dadka arrimahan baaritaanka ku sameynayay sida ay halkan ku soo gaareen Qusay Cuday wiilka uu Saddam awowga u ahaa iyo darawalkooda raggan waxaa la sheegay markii hore in ay gaareen magaalada Tikrit oo aabahood ka soo jeeday magaalo Saddam Hussein iyo qoyskiisa aad looga yaqaanay oo waliba Saddam Hussein adeerkiisii soo galiyay siyaasadda ee sargaalka ciidan ahaa aad looga qadarin jiray meel Saddam markii uu yiraahdo uu ku iibin jiray tufaaxa iyo miraha iyo waliba raashinka bisil hareeraha wadooyinka markay magaaladaasi ku laabteen dadkii nukhbada ahaa ama elite-ka ahaa ama hogaamiyaasha ahaa ayaa ka fariistay nolosha magaaladan waxay dareemeen ciidamada Mareykanka halkan inay iman karaan isla markaana laba mid uun la dooranayo dadka deegaankan jooga inay ku baaba'aan ilaalinta raggan iyo waliba in Mareykanka inta aanu soo gaarin halkan ay raggan baxsadaan wararka la helaya waxay tilmaamayaan raggan inta aanay soo gaarin aagaasi in ay soo mareen dhowr deegaan oo kala duwan oo ay ka mid tahay halka loo yaqaano Aynul Bayda oo koonfurta Mosul ka tirsan 14 biro ayaa halkan joogeen kadibna waxay u soo gudbeen magaalada Mosul iyagoo yimid guriga lagu toogan doono ee uu degan yahay ama uu lahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka wadankaasi oo aad caan u ahaa oo si weyn loo yaqaano la yiraahdo Nawaf Saddam isla markaana baarlamaanka wadanka Ciraaq ka tirsan jiray kadib ciidamada Mareykanka gaar ahaan waaxda CIA-da oo raggan daba socotay ayaa heshay sida la socoteen wadanka Ciraaq 55 qof oo Saddam uu ka yahay ayaa la raadinayay Cuday ayaa ahaa nambarka labaad ee Mareykanku ay baadi goobayeen nambarka saddexaadna waxa uu ahaa Qusay xog baa soo baxaysa marka sirdoonada caalamku ay baahinayaan waxay ahayd in raggan ay ku socdeen inay ka tallaabaan xuduudda wadanka Suuriya kadibna ay u gudbaan magaalada Dimashq iyagoo halkaasi kula kulmi doona xisbiga Al-Ba'ath qaybtiisa Syria haysata qoyska Xaafid al-Asad maadaama markaasi talada uu la wareegayay Bashar al-Assad kii dhawaan laga raacday wadanka Syria inay u tagaan warar kale oo soo baxaya ayaa tilmaamaya in ay wateen dahab aad u fara badan iyo qarash kale oo lacag oo aad u xoogan lama oga ilaa iyo hadda lacagtaasi meesha ay aaday laakiin Ciraaqiyiintu waxay leeyihiin gacantii Ciraaq arrintan kuma soo laaban
qabrigoodii maanta Mosul ayuu ku yaalaa oo halkaas ayaa lagu aasay waxaana reer Mosul weli ay ka qoomameynayaan in weelashii madaxweynaha dalka lagu dilay gudaha magaaladooda iyadoo aan loo gurman maalintaasi Mareykanku waxa uu gaaray target aad u weyn laakiin waxa la yiri weelashii Saddam Hussein si gobonnimo leh ayay u dagaalameen oo waxay diideen iyagoo nool Mareykanka inta uu qabto in sidii uu doono laga sameeyo ama sidii aabahood xarig inta doonta loo galiyo la daldalo haddaba marka la fiiriyo wadanka Ciraaq maalinta Qusay iyo Uday la dilay iyaga bas ma dhiman ayaa la yiri oo xitaa waxa dhintay sharaftii wadankaasi Ciraaq maanta waxay ka mid yihiin wadamada ugu nugul ee dalalka Carabta ka tirsan halka Saddam Hussein bari lagu tilmaami jiray caarka Carabta oo Carabta cid ay isqabtaan isaga ay ka amar qaadan jireen Mareykanka wadankan markii uu soo weeraray 2003 waxa uu ku soo galay in ay haystaan hubka wax baabi'iya ee kiimikada xilligaas waxa caan ahaa magaca Dr. Mohammed Al-Baradici ninkii hay'adda atomikada qaramada midoobay haysan jiray booska hadda Rafael Grossi uu ku fadhiyo Baradici oo ka soo jeeday wadanka Masar dhowr jeer oo kala duwan ayuu gaaray wadanka Ciraaq isagoo baaritaan ku sameeyay deegaano kala duwan oo lagu tumayo hubkaas inuu ku jiray laakiin markii Saddam la dilay Qusay iyo Uday la dilay Mustafana la dilay rag badan oo Ciraaq ka tirsan noloshooda ay waayeen Mareykanku ugu dambeyntii waxa uu sheegay wixii wadankaasi u galay in laga waayay laakiin sirtu taamaha sirta waxay tahay ceelasha shidaalka ee wadanka Ciraaq in gacanta Saddam Hussein laga saaro jaangooyinta shidaalka dhaqaalaha caalamkana gacanta Mareykanka ay gasho maalintii raggan la dilay ayaa laga guuleystay Ciraaq waana maanta wajiga saxda ah ay leedahay dhowr iyo 20 sano kadib maalin kara maalintaasi sharaftii Ciraaq ayaa ceel ku dhacday soo dhawaada